السلام عليكم نلوش هذا إسبدل وين مررتها فكري جاي هان شذا إني وين إسكبدلان أمير سرقاتي مركا قف نلوش على شير جرينيسيد أرنت عن يرتاد جيسو بني آدم كمركا قابشيد أما أجور سنيسيد أما أنور القيب سنيسيد قفكي أو أركتد قف لجعلان كرو دم يسترنا كو إمادة سو معها وسيدا كتاب وكله أنا كتاب القرآن كاستعماله كتاب كله هذا ما هايو جبت الرب بدن ونلوش يساجر مذو يرى مذو وحبرنا مذو كيا جبت الرب بدن لسه قف كاسيت واسكه شين وان إسكور ستين هل جبتر oo noloshiisa kamid ah noqonay qofkan intiisa kala uu leeyimid waxa noqonaysa naagteeda ama ninkeyga marka dadka qaarkood positionka ay galeen ma yaqaanaan waxay rabaan jabtar kasto oo qofkaas noloshiisa ku jira inay xukumaan ay maanta dhan weydiiyaan maxay ahayd maxay ka ahayd ka dadada oo xukumaad waligeeda ma aragtay nolol qurxan isku bedesho qof kasto isku dayo qof uu jecel yahay inuu controlo oo noloshiisa dhan gacanta ku haayo asiga ma ahana in wax kala jirin waa qof dhahay noloshaadii oo dhan jabtarkan cusub ayaa xukumi doona nin haada manaag ha ahaato marka fahanka booska adiga leedahay qofka aad jeceshahay noloshiisa aad ka leedahay ina fahantid waa daruuri marka qaasatan qofka labada qof banaanka bixaysay shaqeynaya wax soo qabanaya maanta dhan arrimo badan uu ku jira macnaheedu ma qofkaas haduu busy yahay inuu adiga ku rabin haduu wax kala qabanayo nolosha adigu ku doorto qofkii marka waxa la rabaa booskaas halka jabtar waxa u bedeshaa hal jabtar oo necessity ah oo markii la walwala adiga lagu yimaado markii ma aragta hadal la jecel yahay adiga lagu yimaado qiimeyn hadii la rabo in adiga lagu soo maro adaa jabtarka qofkaas noloshiisa meesha aad ka leedahay muhiim ka dhigi karo laakiin qasab ugama dhigi kartid badanaana dadka hadaa ay jeceshahay maxaa kan ay siin weyse maxaa yeeli weyse maxaa ka dhici weyse jacaylka ugu fiican waa qofka saatahay kugu qaata ee wax kasto aad tahayna kugu raba jacaylna waa jacaylka qofka condition uu ku xiran yahay inta ay wanaajinaysid inta wax kasta ay qabanaysid inta aniga iga fikiraysid waa ay jeceshahay hadaa wax kale ku mashquulshid ima jeclid waxa waaye intaan qofka ii sameey waa jecel yahay qofka ii sameeyna ma jeclo qofkaasna maanta dhan dagaal uu ku jira fikradda aan rabo inaan ku soo gudbiyo waxay tahay yaa ilaahow ma qof aad dhashay noqoto qasab iyo xukumaad kuma abuuran kartid nolol jiritaan leh maanta dhan ina complain sameeysid noloshu waa give and take dadka kugu dhawna waa ina maarata excuse u sameyn kartid inaadan ku noqonin culays eed ku u noqotid qof aan baahideeda laga maarmin qofka culayska kugu noqdo waa qofka maanta dhantiisa iyo stress ku gelinayo aanan ku consider gareynaynin adiga iyo waxyaabaha aad ku mashquulsantahay ama waxyaabaha aad samaysantahay dad badan aan nolosha dad wanaagsan u qasaaraan because weygay u dhaqmaan aa keenaysa waxayna u maleeyaan weygaas inay xaq u leeyihiin ama ay jacayl ku tusinayaan jacaylku ma noqon karo xukumaad iyo qaylo iyo nacayb ma noqon karo maanta dhan in la wada tartamo hadalkii lagu dhahdid lays dhageysanin lays mataqaana kala dambeyn ayna jirin jacayl iyo jiritaan dheer kuma iman karo hadda waxaa la ogaaday guurarka ma aragtay gaaraan dadka isla joogan ilaa ilmahooda ilmo kala dhalaan waxaa la ogaaday inay yihiin dadka isku qaato xumaanta iyo wanaagga isku qaato qof dhameystiran adduunka ma joogo su'aashu waxay tahay meeqashay qofkan ka fiican yahay waxyaru ku xun yahayna kor istaagsanaani nobody is complete marka waa inaan barano dhaqanka ah intaan haysto see u wanaagsanaa ayna iiga halaabin dhaqankaasna anaga aan ilmaheeni iyo ehelkeena sii barno dudunkiya noo sahlanaaday qof kasta maanta dhan energy xun u haya mujtamacina uu gudbinaa nimanka saana naagahana saana waxaana kan ah goormee wanaagi iyo ususki iyo tiirarkii nolosha iyo usrada iyo hadal badan meel ma buuxinayo maanta isnaabkeyga arrintan ku duubooyaa fikriga as a waalid rabo inaan ku soo gudbiyo waxay tahay maaragtay orodka iyo maaragtay aqoon darrada iyo fahan la'aanta qof wanaagsan ha u qasaarin beriyaa ogaan doontaa valuegiisa markaa qasaartay waxa le beriyaa qof fiican nolosheeda ku jira laakiin waa yaraayo waxa ma fahansanayno saanaan sameeyo wiil iyo gabarba way ku dhacdaa marka insha Allah ta'ala daa'iman waxa dhageysataa qofka noloshaada wax ku soo zaa'idinayo miidiga aad waxa ugu badan qof asiga problem qaba ee inuu meel soo fariisto kaaga dhigayo inuu subject kaaga sheekeynayo laakiin hadafka uu leeyahay taa inuu naqas baxo markuu qofka xumaatadiisa miidiga soo galiyo ama ciilkii haayo uu kaaga dhiga program uu ku soo gudbiyo adiga taadiya laga yaabaa hadal uu dhahay inaad ka dhex aragtid ad dhaqankii aad yeelatid qofkan xaaladiisa oo kale adiga kuma noolid
marka daa'iman waxaa dhegaysataa dariiqa saxda iyo culimadeena waxay soo gudbinayso iyo cilmiga see nolol sawiya loo dhistaa laakiin haddaad dhahdo qof kasta iska dhagaysanaya weygu waxu arkay aragtidiisaan ku dhaqaaqaa haddaad tiraahid culaysi adiga sabab u haynaad sii saaraysaa dad badanayna ku dhacday ma taqaanid qofkaan meesha ka hadlaayo ma naqas buxooyaa mase fikrad adiga noloshaada dhistu kuu soo gudbina in any case khayr aan ku rajaynaa as a waalid waxaan kula jecelahay nolol qurux ood u kacday oo u kuftay oo u sabartay inaa heshid oo berina aa ku macaansatid oo adigana qof kale ilmahaaga kaa bartaan ama qof kaloo bini aadan oo yar kaa barto oo maaragtay aan wanaagga isku sii dhiidhiibno khayr aan ku rajaynaa meesha adduunka ku joogtid farxad ku noolow tartiibina go'aamadan aad degdegta ku gaaraysiin hala joojiyo once or twice حتى هذا علمي يقرشة أذن أوليه هنا أرنت كأحد بدن تاي لو رجع دكو مركز إلهه ما ركتي وحيقول آدي ساجد كالصح ذا قفك الدعيستو وكي وحلا خيرا كورجينا السلام عليكم